ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa lagu soo bandhigay buugaagta manhajka waxbarashada dugsiga hoose ee fasalka 1 iyo 4 mudasha ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada waxa ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya aqoon-yahano ka socday jaamacadaha qaarkood khubaro matalaya hay'adaha caalamiga culimada dalka iyo marti sharaf kale Faadumo Maxamed Cali oo kamid ah guddiga manhajka qaranka dalka ayaa marka hore ka sheekaysay heerarka uu soo maray manhajka waxbarashada dugsiyada dhexe لابد كون لبي طبنكي وزير عبد النور حلقة وزارة الجوغي إن بالله هو لا وضع تشي وحيابا لقى تشينا حلقة صحيح هاي شهادة دولة أصميسا وحان أقنا هاي دلابي هو الجوغان وزارة كل ذلك والله اسكشقينا حلي أرق إنا هاي مفضل مركز سنويا كدنبو ما أنت ماشي أنجوم إن لقارو الشيخ بشير أحمد صلاة وكمد علماء قوة وين ذلك إيا وزيرك وزارة وحبرشة حكومة الصومالية عبد الرحمن ظاهر عثمان أياكها اللي حفلة حنسلها إن شاء الله تعالى وشقاء صوصار الدونتا عن أرض الصوماليات وعن ربنه وقال له فكري منهج كان قرينه إيا وحن لقي دونه horta qofka aan rabno qof noocee ah baa la isweydiiyey qof dalkiisa u shaqeeya dalkiisa yaqaana diintiisa yaqaana ummadiisa ku xiran waxa aan rabno hiigsiga aan rabno mustaqbalka iyo aragtida fog aan leenahay inay soo dedejiso bahwadaagta waxbarashada aan ahayn kuwa maxalliga ayaan waxaan ka codsanayaa in ay gacan ka geystaan manhajkan sidii loo dhaqan lahaa beer bixiyaasha waxaan ka codsanayaa in maanta aan haysano manhaj aan haysano buugaag aan annaga leenahay aan qoranay waxaan ka codsanayaa iyagana in haddii ay rabaan inay taageerana siiyaan ay halkan taageeraan gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo bogaadiyay hawshan ay qabatay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya dalalka deeqdayna siiyana waxaan ku boorinayaa oo aan leeyahay yani halkaas oo kale in si fiican ay u maalgeliyaan wasaaraddanina ay kolkaa saldhig u tahay wasaaraddana aan ku dhiirigelinayaa qoraalka af Soomaaliga in la mideeyo lahjaduhu waa kala duwanaanaya ku hadalkiisu af Soomaaliga inuu noqdo qofku يعني كلبا دجان كوجوجا سيدا لوجا دواقو إنه وجود دواقو لكن قرال كإن لم يدايو ووزارة أي أرنتاسي واجب جارة إسكسرت محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقالة مقدشو